السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قاليga soo dhawaada sidee tihiin aniga waan fiicanahay alxamdulillaah maanta filimkeena wuxuu ka bilaabanayaa gabar arkaysa boor soo dhacayo waxayna isku dayaysaa ninka boorka agtiis taagan inay badbaadiso maadaama uu ku soo dhici rabo kadibna qoorta ay ka qabanaysaa gadaal ayay ugu soo jiidaysaa asigana wuu isku naxaya wuxuu istahayaa qaftaan yaa waaye kadib labadooda way isla dhacayaan run ahaantii midaas asiga wuu la yaabaya wuxuu isdhahayaa gabadha maxaa ka qaldanne kadib si xun ayuu u fiirinayaa maadaama uu boor ku soo dhici rabay ka badbaadisane waxa imaanaya gacan yarihiisa wuxuuna weydiinayaa inuu caafimaad qabo intaas wixii ka dambeeya ayada waxay u sheegaysaa inay tahay superwoman ee wax walba qaban karto shaqadoonna ay tahay asigana jawaab ma siinaa meeshoo dhanna wuu kasoo tegayaa haweenada kamid ah iyadoo socota iyo waxay ku dhacaysaa geed xanuun ayayna dareemaysaa laakiin xanuunkaas xanuun la mid waxaa dareemaya tooraha filimka wuxuuna isweydiinayaa qofka wax ku dhuftay kadibna hortiisa ayuu fiirinaya wuxuuna arkayaa gabar ugu dambeyn subaxii xigta wuxuu imaanayaa shirkadda asigoo dooranaya shaqaale u shaqeeyo kadibna wuxuu weydiinayaa halkay kasoo shaqeeyeen wuxuuna ku dhex arkayaa gabadhii badbaadisay wuxuuna isdhahayaa maxaana halkan keenay ayadan way fahmaysaa in la fahmay kadibna hoos ayay fiirinaysaa asigoo soo bixi rabana shaqaale meesha kamid ahay ayaa wuxuu isku dayayaa inuu dilo laakiin ayada ayaa ka badbaadinayso asigana dhaxda ayay ka qabsanaysaa waxayna ku dhahaysaa hadda kadib aniga ayaa diyaar u ah inaan ku badbaadiyo kadib midka kale ayaa waxa uu tilmaamaya mid sii cararayo ayadan way ka daba cararaysaa ninka kale ayaana si xun u garaacaysaa asigana midaas wuu la yaabayaa wuxuuna ugu wacayaa xafiiskiisa wuxuuna ku dhahayaa hadda kadib aniga ayaa dila shaqaynaysaa weliba waxaad ii noqonaysaa bodyguard ayadan midaas way ku farxaysaa haween kalena meel ayay ku balminaysaa kadibna waxay ku dhahaysaa waan kaasoo daahiga raali noqo hadeertaan kadibna waxaan qabsanayaa shaqadeeda asigana waa xanaaqaya gaariga ayuuna feer ku dhufanayaa ayadan waxay ku dhahaysaa iga raali noq kadibna waxay u furaysaa albaabka gaariga asigoo xanaaqsanayuuna gaariga sidaas ku galayaa shaqadeeda ugu horeysan sidaas ayay ku gudatay maalinta labaadna si qurux badan ayay shaqadeeda u dhammaysanaysaa ugu dambeyn dharka bodyguardka ayay xiranaysaa sida asiga mar walba u badbaadiso asiga run ahaantii wuu la yaabayaa siday u dhaqmayso intaas wixii ka dambeeyay waxay u sheegaysaa inay tahay wax walba shaqadeeda kadibna waxaan aragnaa maalin in lagu dhufto madaxeeda buug kadibna waxay garaacaysaa wiilka horteeda taagnaa maadaama asiga oo madaxa qabsaday kadibna wuxuu dhahayaa maxaad u garaacday wiilkan adiga ayaad madax qabsata ayay ku dhahaysaa asigana wuu la yaabayaa dhaqankeeda ugu dambeyn waxaan aragnaa asiga inuu soo xasuusanayo habeenkii xanuunka uu dareemayay wuxuuna la yaabayaa markii buug lagu dhufto asiga sidoo u dareemay kadibna wuxuu isdhahayaa gabadhan iyo adiga maxaa idinka dhexeeya ugu dambeyn wuu soo baxayaa wuxuuna u imaanayaa iyadoo banaanka joogto ayadan way ka naxaysaa waxayna ku dhahaysaa maxaa qaldan asigana wuxuu ku dhahayaa booskaaga yaanaha waa inaad shaqadaada qabsataa kadib way qoslaysaa garabka ayayna ka qabsanaysaa waxayna ku dhahaysaa shaqadeeda waan qabsanayaa hadeertaan asigana wuu kusoo sekanaa wuxuuna ku dhahayaa maxaad samaynaysaane sababtana maxay tahay aniga waxyaabahan oo dhan uu dareemayo intaas wixii ka dambeeyay maalin ayadoo banaanka joogta ayaa wiilku shineetar lugta ka marsiinaya asigoo musqusha ku jiran xanuunkaas ayuu dareemaya wuuna qaylinayaa ayadan wiilka dhicirawa ayay qabanaysaa waxayna maqlaysaa codkiisa kadibna waxay isdhahaysaa tuug ayaa soo weerar waxayna ugu galaysaa musqusha asigana wuu isku naxayaa intuu ayada fiirinayana galuus ka yaaba ka go-ayabo ayadan way usoo dhawaanaysaa waxayna ku dhahaysaa waxaan maxaa waaye kadibna waxay arkaysaa inuu qaawan yahay indhaha ayayna qabsanaysaa ugu dambeyn ayada saaxiibteeda ayay soo aadaysaa feer ayayna ciyaarayaan feertaas ayada lagu dhufanayana asiga ayaa dareemaya wuxuuna la yaabayaa wax asiga ku dhacaya ayaamahan intaas wixii ka dambeeyay maalin asigoo shir ku jirayo wuxuu ka dareemayaa lugaha xanuun maadaama ayada kaba dhaadheer ay xiratay wuxuuna la yaabayaa waxa ku dhacay kadibna wax walba wuu fahmayaa wuxuuna isdhahayaa dhibaatadan ayada ayay ka socotaa saaxiibkiisna wuu la yaabayaa lugihiisa ayuuna fiirinayaa wuxuuna arkayaa inay qaloocanayaan kadibna ayada kabaha ayay ku boodboodaysaa maadaama ay soo gadatay kaba aad iyo aad u dheerdheer asigana wuu fahmayaa wuxuuna arkayaa ayada uu wareegsanayso kadib aad ayuu u xanaaqayaa wuxuuna usoo xararayaa qolkay ku jirtay ayadayoona wuxuu u qaadayaa kor wuxuuna ku dhahayaa sidee midaan ku samayn kartaa ayadan way yaabaysaa ahaantii shaqaalihiisoo dhanna arrintaas way la yaawayaan asigana wuxuu u gelinayaa kabo baabud wuxuuna kasii siiwayaa kabihii dheerdheeraay ayada run ahaantii arrintaas way la yaabaysaa shaqaalo oo dhanna ayaga ayay ku mashquulayaan kadibna wuu u dhawaanayaa wuxuuna ku dhahayaa kabo damboo dhaadheeraa ma xiran kartid aniga ayaana midaas kugu amray ayadan midaas way la yaabay
yaabaysaa maalinna lugteeda iyo waxay ku dhufanaysaa derbiga asigana wuxuu dareemayaa xanuun isla markiina wuu soo laabanayaa wuxuuna ku dhahayaa maxay tahay sababtaad midaan u sameynaysid maanigaad iigu dhibaysaane ayadan waxay ku dhahaysaa waxba waan fahmi la'ahay laakiin mar kale ayay u celinaysaa asigana isla xanuunka ayuu dareemaya wuxuuna ku dhahayaa dambe ma samayn kartid ayadan midaas ayay la yaabaysaa waxayna ku dhahaysaa sidee midaan ku dhacdayne mar walbana arrintaas ayay ka fikiraysaa haweenada kamid ah asigoo taleefankiisa ku mashquulsan iyo wuxuu arkayaa qof bir soo wato oona xaggiisa kusoo wajahan aad iyo aad ayuuna arrintaas uga naxayaa kadibna ayada ayaa u imaanaysa meel ayayna ka tuuraysaa sidoo asiga birta ugu dhufanin ayadan waxaa madaxa ka gaaraya dhaawac asigan madax ayaa sidoo kale xanuun ka dareemaya wuxuuna isdhahayaa ayadaya wax soo gaarin markuu gacanteeda fiirin wuxuu arkayaa inay dhiig leedahay maalinna way isdharbaaxaysaa asigayaan xanuunkaas dareemaya wuuna qaylinaya ayadan waxay ku dhahaysaa iga aamus kadib maalinta xigta dhinaciisa ayay soo istaagaysaa waxayna ku dhahaysaa wax walba siday u dhaceen ma aqaano laakiin waxaan rajeynaya wax walba inay kheyr ku dhammaadaan asigana jug ayuu siinaya wuxuuna ku dhahayaa adigayaa wax walba haleyn karo adigayaana toosin karo ha isku dayin aniga inaad imaagto kadibna shub ayay dhahaysaa waxay ku fikirtaa ayayna weynaysaa intaas wixii ka dambeeyay waxay arkaysaa asigoo gabar la joogo ayadan aad iyo aad ayay u maseyraysaa waxayna ka maseyraysaa gabadha la joogto kadibna waxay arkaysaa baxda wadata iyada inuu ku jiro kaba dhaadheera kabaha ayaan xiranaysaa saayid ayaan lugaha uga garaacaysaa gabadhan waa la yaabaysaa waxa ku dhacay asigana wuxuu lugaha ka dareemayaa xanuun saayid weyn wuxuuna ku dhahayaa waan kuu soo laabanayaa wuxuuna u imaanayaa ayada wuxuuna ku dhahayaa maxaa sameynaysaane ayadan waxay ku dhahaysaa wixii la iga baahnaa ayaan sameynayaa asigana derbiga ayuu ku qabanaya wuxuuna ku dhahayaa dambe waxaa ma sameyn kartid haweennimadii markii la gaarna buuljima ayay ciyaaraysaa buuljimadaas intay ciyaaraysana asigayaa xanuun badan dareemayo wax walba oo ayada lagu dhuftana asigayaa dareemayo labadoodna waxay noqonayaan isku dareen ayadoon midaas ka warheynin asiga sida feer uga dhacaysa maskiinka dhulka ayuu ku dhacayaa ugu dambeynna wuu suuxayaa subaxiina waxay imaanaysaa gurigiisa waxayna arkaysaa asigoo suuxsan wax walbana isla markii ayay fahmaysaa kadibna way u dhawaanaysaa maadaama uu suuxsan yahayna waxay ku fikiraysaa inay siiso neefteeda markay u dhawaatay isdhahda shamine waxay kusoo kacaya asigana wuu kala tuurayaa markuu kala tuuro kadibna waxay ku dhacaysaa miiska meesha yaalay miiskaas ayaan dhabar ku galaa asigana isla xanuunka iyada dareenta ayuuna dareemayaa wuxuuna ka shalaanayaa maadaama uu kala tuuray ayadan waxay ku dhahaysaa hadeertaan ma caafimaad qabtaa asigana wuxuu ku dhahayaa adigaba dee dhaawac ku gaarin anigana waan fiicanahay ugu dambeyn ayada waxaa qabanaya xanuunka gabdhaha asigana isla xanuunkaas ayuu la dareemayaa ayada markii musqusha kasoo baxdana waxay arkaysaa asigoo xanuunsanayo waxayna ku fikiraysaa xanuunkaas oo kale inuu haayo maadaama ayada xanuunkaas oo qabto ayada ayuuna weydiinayaa inuu waxyaabahaas haayo ayadan waxay ku dhahaysaa haa asigana wuxuu sameeyay ayuuna garan weynayaa dambeyn geed ayay fuulaysaa gacanta ayaan dhaawac kasoo gaarayo asigana xanuunka ayuu dareemayaa meesha geedka ayuuna imaanayaa wuxuuna ku dhahayaa soo dego kadib asigayay ku kordhacaysaa waxayna ku dhahaysaa wiilkii riiska iyo buufinka usoo dejinaya intaas wixii ka dambeeyay hortiisa ayay istaagaysaa waxayna ku dhahaysaa sababta halkan u imaado maxay tahay asigana wuxuu ku dhahayaa adiga dartada sababtoo mar walba xanuun ayaad ii geysataa ma aqaan sababta tii ugu geystid xanuunkaane kadibna wuxuu ku dhahayaa feer ayaan kugu dhufan lahaa hadaa nin ahaa laheede ayadan shub ayaa iska dhahaysaa maskiinta meesha oo dhanna way kasoo tegaysaa haweenkii markii la gaarana asxaabteeda ayay la ciyaaraysaa sidiisi lamid ayaan loo garaacayaa asigoo asxaabtiisa la casheynayan wuxuu dareemayaa xanuunka iyada loo geysanayo asxaabtiisoo dhanna waxay la yaabayaan asiga wax ku dhacay ayadan si xun ayaa loo garaacayaa ugu dambeyn wuxuu fiiriyayaa locationkeeda wuxuuna imaanayaa meeshay joogtay ayadoo feer lagu dhufan raban wuxuu ku dhahayaa joojiya qaftan qof wax u geysan karta malahan ayuu ku dhahayaa hadda kadibna mala ciyaari kartiin ayadan inuu fiiriyayo wuxuu ku dhahayaa meeshaan kasoo tag kadibna gacanta ayuu kasoo qabanaya meeshoo dhanna wuu kasoo wadayaa ugu dambeyn habeenkii markuu hurdo waxay isdhahaysaa ka dhuumo ayadoo sii bix rabtan wooba kusoo kacaya wuxuuna ku dhahayaa xagee u socotaa kadibna gacanta ayuu ka xirayaa asigana gacanta ayuu iskula xirayaa wuxuuna ku dhahayaa meelaad u baxsan kartid malahan waa inaad dhulka seexataa ayadan run ahaantii midaas gumaysaya u arkaysaa weyna xanaaqaysaa kadibna dhulkeeda ayay iska seexanaysaa ugu dambeyn subax xigta waxay soo kacaysaa asigoo laabtiisa jiifto waana isku naxaysaa waxayna ku dhahaysaa sideen halkan kusoo fuulayne asigana wala yaabay waxaan ku dhahayaa degdego kadib wuu kala tuurayaa iyadoo dhulka gaarinna wuu qabanayaa sidoo asiga xanuunkaas uu dareemin ugu dambeyn dhalo meesha ku daadsaneeday ayaa gacanta ka sareyso ayadan dhaladii ayay ka dhagaysaa waxaan ku dhahaysaa waan ka xumahay warnasiida ayuu ku dhahayaa wax walba adigayaad noo geysatay adiga kulankaa wixii ka dambeeyay xanuunkan waan ka bixi lahahay ayadan waxay ku dhahaysaa
indhamaa ku haysane gacanta ayuu ka qabanaya wuxuuna ku dhahayaa iga fogow. ayadan way xishoonaysaa intay soo jees isdhehaysan dhalada iyo madax gashanaysaa. isagan xanuunka ayuu dareemayaa iyadayuuna ku qaylinaya. subax xigta markuu xafiiska yimaado wuxuu arkayaa iyadoo ku ciyaaraysa waraaqadaha lambarka lagu dejiyo. kadibna aad ayuu uga xanaaqaya wuuna kasoo qaadaya. wuxuuna ku dhahayaa dambe waxaad xanuun isku gaarsiinaysid ma taaban kartid waa inaadna meel fadhiisataa. ayadan asiga ayaa kuuraysa. asigan wuxuu ku dhahayaa indhahayga adigoo kaliya ayaan kuugu hayaa waxna ma samayn kartid. ayadan midaas way ku caajisaysaa. haweenka markii la gaaran gacmihiisa ayuu gubasho ka dareemaya. jikada markuu imaadan wuxuu arkayaa iyadoo cunto karinayso. waxaana ku dhahayaa cunto haddaa ma karin kartid gacantaada hadirtan way gubatadee. ayadan way xishoonaysaa waxayna isdhehaysaa waa laguu naxayaa laakiin wuxuu ku dhahayaa banaanka bax cunto ma karinaysidee. intaas wixii ka dambeeya asigoo musqusha ku jiraya isdhehaysaa fiiri laakiin asiga yaab ku fahmaya albaabka ayuuna soo furaya. ayadan indhaha inay qabsata ayay iska dhigaysaa. kadibna si tartiib ayay u fiirinaysa. asigana wuxuu ku dhahayaa fur ee si fiican ii fiiri maxaad iga eegaysaan maxaadna soo doonta ayuu ku dhahayaa. kadib qolka ayay ugu soo gelaysaa waxayna ku dhahaysaa waxyaabo badan ayaan soo doonay. kadibna gacantiisa ayay gacanta saaraysaa. asigana wuu iska dejinaya wuxuuna ku dhahayaa iga fogow waa ku dhahay. subaxdii xigta wuxuu arkayaa iyadoo buujimada geedaheeda soo xiratay eena diyaar u tahay dagaal. kadibna jug ayuu siinaya wuxuuna ku dhahayaa maxaad samaynaysaa geedkan dambe kuguma arki karisoo kuma dhihin. ayadan way kasoo cararaysaa. asigana wuu soo bursanaya wuxuuna ku dhahayaa horta sidaad banaan afkayaan koola kaaga dhejinayaa war ma maqlayside. kooladii intuu ku dhejin rabay way isla dhacayaan wuuna shuminayaa. ayadan feer ayay ku dhufanaysaa maskiinka wuuna dhacayaa. dibna waxay maagaysaa inay ka dhayda. asigana xanuun ayuu dareemayaa. ayadan way ku qoslaysaa. ugu dambeyn maalinta xigta waxay u keenaysaa biyo. asiga ayaana fiirinaya. ayadan way xishoonaysaa hoos ayayna dayaysaa. intay hoos dayaysana biyaha ayay ku daadinaysaa. asigana wuu ka xanaaqay. ayadan waxay ku dhahaysaa biyaha ayaan kaa tirtiraya laakiin labadoodba way isla dhacayaan. iyadoo sii dhici rabtana asiga ayaa qabanaya. markuu qabta kadibna dhagtiisa ayay ku fariisanaysaa. kadibna labadooda way iskuurkuuraya iyagoo isfiirinayana shaqaalaha ayaa soo galayo. ayadan aad iyo aad ayay u naxaysaa wayna ka boodaysaa. shaqaalahan wuxuu ku dhahayaa mudan hadeertaa maxaan sameeyaa. asigana wuxuu ku dhahayaa iska bax. kadibna wuu iska baxayaa. labadoodna way isfiirinayaan waxayna ku fikiraanayeen garan weynayaan. maalinta xigto waxay soo baxsanaysaa bareys koronto waxayna ku dhahaysaa waan kuugu dhejinayaa. asigana wuxuu ku dhahayaa midaas ma samayn kartid. labadoodna way isku kordhacayaan kadibna way isku kor seexanayaan. kadibna shaqaale ayaa dan uu soo galayo. asigana aad iyo aad ayuu u naxayaa wuxuuna ku dhahayaa mudan howshaada wada hadeertaa miska baxaane. asigana wuu ku xanaaqayaa wuxuuna ku dhahayaa albaabkaada soo garaacin hadda kadib ma soo geli kartid. asigana wuxuu ku dhahayaa igaraal noqwoona baxayaa. ayadan waxay ku dhahaysaa waxay ahaato waan sii baxayaa. ugu dambeyn subaxyada kamid ayagoo aalmiindeynaya mooto gadaasheeda kasoo baxayso. intaa mootada ka badbaadinayana ayada lugta ayaa kibili ka galayo. kadib ninka ayaa ku qaynaysaa waxayna ku dhahaysaa wadada ma arkeeni miya. intay soco maagtana lugta ayuu xanuun ka dareemaya wuxuuna ku dhahayaa adiga lugta kibili ayaa kaa gale. kadibna wuxuu ku dhahayaa waxay ahaato sidaan xanuun u dareemin waa inaad dusheeda soo kortaa. ayadan way ka ogolaanaysaa sidii ayayna dushiisa ku koraysaa weliba iyadoo aad iyo aad u faraxsan. ugu dambeyn maalin ayadayuu u dhawaanayaa wuxuuna dareemayaa dhaqdhaqaaq aad iyo aad u badan. markuu saacadiis fiidiyeen wuxuu ogaanaya inuu aad u jecel yahay qoftaaniiti. mar walban wuxuu isku dayayaa inuu daryeelo. ayadan way xishoonaysaa mar walba hab ayay siinaysaa maadaama ay dareemaysaa asiga inuu jeclaaday laakiin asiga waxba uma sheegayo. asigan mar walba wuu is adkeenayaa sidaysan u dareemin inuu jecel yahay. maalin maalmaha kamid ayagoo jooga maqaayad ayaa waxay arkaysaa wiil hore u taqaani. markay aragtan way ka jeesanaysaa sidoosan u fahmin laakiin asiga wuu fahmayaa wuxuuna u taagayaa gacantiisa wuxuuna ku dhahayaa ugu dambeyn waan wada kulannay. ayadan way salaamaysaa waxayna ku dhahaysaa soo dhawow sidee tah waaligu waa ayaantaaniiti. asigana wuu la yaabayaa meeshaan waxa ka socdo. ayadan waxay ku dhahaysaa soo bax aan hore isku sii raacnay. dambeyn maalinta xigta wiilku wuxuu u sheegay inuu aad iyo aad u jecel yahay ayaantaan uu raadinayay. asigan meel dheer ayuu ka daawanayay wuxuuna ku dhahayaa gabadha maxaad ugu dhagan tahayne kuma rabtee. asigan wuxuu ku dhahayaa adiga midaas kuu sheegay. wuxuu ku dhahayaa waa inaan baxnaa anigii adiga qofkan warkiisa iga daa. kadib maalin asigii gacanyarihiisa waxay arkayaan labadooda isla fadhiyaan oona isla sheekeysanayaan. gacanyarihiisna wuxuu isku dayayaa inuu mashquuliyo laakiin asiga mar hore ayuu arkay wuxuuna ku dhahayaa waxyaabahaas iga daayay soo bax. haweenada kamid wuxuu u istaagayaa wadada maadaama asigii ayada isla socdaan. kadibna wuxuu ku dhahayaa anigii soo raac qofkan looma baahna inaad la socotid. wiilkan wuu xanaaqaya wuxuuna ku dhahayaa aniga ayada waa isjecelnahay waa inaan isla joognaa adiga maxaa dhex surkaa dhigay. kadib wuu ku xanaaqayaa feerayoona ku dhufanayaa atooraheena wuu xanaaqayaa wiilkayoona haraanti ku dhufanaya.
qabsanayaa labadoodna dagaal ayaa meesha ka dilaacay atooraheena asigoo si xun loo garaacana ayada ayaa ka celinayso maadaama u tahay gacan yaro kadibna way fiirinaysaa wiilkan meesha dhan ayuu kasoo tegayaa ayadan waxay ku dhahaysaa igaraal naqasigayaan gacanta ka qabanayo kadibna waxay ka dhagaysaa dhaawac ku yaalo ugu dambeyn labadooda way isfiirinayaan haweenka xiga wiilka ayaa wuxuu ku casuumayaa xaflad qamri waxyaabaas laga cabayo ayadan qamriga ayay isku dalaysaa laakiin asiga ayaa u imaanaya waxaan ku dhahayaa halkan ayaan ka tegaynaa wiilka kalena gabar kale ayaa soo qabsanaya gabadha kale ayaanu shuminayaa ayadan way ka maseeraysaa waxayna ku dhahaysaa adigsaa jecel u haystad ayaan anigan u haystaa kadibna tooraha ayaa meesha ku shuminaysaa toorahan maadaama iyada ay cabsanta meesha dhan ayuu kasoo qaadaya subaxina waxay hurdada kasoo wada kacaya ayagoo hal sariir wada jiifaan ayadan way isku naxaysaa islamarkaa ayayna soo boodaysaa atooraheena aad iyo aad ayuu u naxayaa wuxuuna fiirinayaa hoostiisa wuxuuna ogaanaya inuusan dhar wadanin ayadan way soo xanaaqaysaa wayna soo baxaysaa canyarahan wuxuu ku dhahayaa iska joog weli mala gaarin xilliga xafiiska ayadan waxay ku dhahaysaa iga aamuska waheeda ayayna xiranaysaa markay atooraha aragtan meeshoo dhan way kasoo cararaysaa ugu dambeyn maalmo kadib waxay soo xasuusanaysaa labadooda wax dhexmaray waxayna ogaanaysaa inay isla seexdeen ayadan midaas aad iyo aad ayay u farxaysaa mana ka naxayso kadibna aad ayay u xishoonaysaa waxaan la gaarayaa maalinta qalanjibinteeda atoorahani meeshay ka sugaysan waxaa u imaanaa wiilkayada jeclaa wuxuuna u keenayaa wax waxaana ka dalbanayaa guur ayadan run ahaantii midaas way ka niijabaysaa laakiin gadaasheeda iyo waxay ka maqlaysaa isug kadib waxaa u imaanaya agtarkeena wuxuuna ku dhahayaa inaan ku guursado diyaar muu tahay ayadan sharuud la-aan ayay aqbalaysaa waxayna gelinaysaa laabta labadoodna meesha ayay waqti ku wada qaadanaya weliba iyagoo u dabaaldegayaan guurkooda soo socdo filimkeena quruxda badnaayna halkan ayuu ku dhammaanayaa muuqaalkan daa ka heshan like noo saar subscribe noo taawo gambaleelkana furo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay tan kala hadal waxyaabaas taa maqashay karaal naqo sababtoo muuqaalkan inta waxaan duubayaa maalin cadeey mac salaama